wax badan baynu natiijadoodii haynaa. qoysaska ku nool dabadda talo maroorsigu aad iyo aad buu ugu batay. dabadeetana dhibaatooyin badan baa ka dhacay. waxaa ka soo baxay dhaxal xun. dhaxalada ka soo baxay waxa aynu ka tilmaami karaa maanta inaad arkayso ama aad maqlayso in wiil ama inan jeel ku jira inuu haddana jaamacad ku jiro. waxyaabaha dhaxalka laga dhaxlay bay ka mid tahay in markii carruurtii la wada maamuli kari waayey, taladii la kala maroorsaday, lagu kala dhaqaaqay, dabad carruurtii luntay, dabad carruurtii jeelal gashay, qofkii waalidka ahaa ceebtiisii iyo khaladaadkiisuu galay iyo fashilmaantu ku fashilmay hagitaankii iyo maamulkii carruurta, halkuu ka qiran lahaa ee dib isu qoomayn lahaa ee ka soo noqon lahaa wuxuu isku maaweelinayaa been. marka ilmihii jeelka ku xidhnaa la weydiiyo wuxuu odhanayaa meel heblaayo wadan heblaayo jaamacad kaga jira, ama wuxuu odhanayaa wadan hebel buu masaajid imaam ka yahay oo tujiya. hadda jeelku ku jira. dadkii been buu u sheegayaa, isaguna been buu isu sheegayaa. wuxuu ka warwareegayaa oo ka cararayaa inuu naftiisa runta u sheego, inuu qirto khaladka iyo dembiga ay naftiisu gashay ee ay ilmaha ka gashay ee u sababta noqday inuu ilmahaasi jeel galo. waa natiijooyinka aynu hayno, aynu talo maroorsiga ka hayno, aynu khilaafaadka qoyska ka hayno, aynu hoggaan xumada qoyska ka hayno. markii lagu heshiin waayey ee loo kala dambayn waayey ee dabadeetana qofba dhinac u jiitay aakhirkiina lagu kala tegey ee halkaa uu ku burburay.